nabaday daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan halkan aan iskala soo hadlaynaa waa Jidbaale ciidamada xaqudurka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa halkan ku mareeyay korjoogteenku ciidamada ayaa gacanta ku dhigay gawaarisi ku turbaan halkan ugu safraysay kadib marka ciidamada sirdoonka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ay ogaadeen in gaadiid ku turbaan uu halkan ku marayo si sharci darra kadib markii gudida 33 ay soo saareen in ganacsiga galbeedka laga joojiyay deegaanka. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan mahadcelinayaa bahda Kaah News oo indhoweyd ka shaqeynaysa deegaankan aad iyo aad bad mahadsantiin ma leeyahay caawa dhowr qodob baan rabaa inaan ka hadlo oo ka kooban oo aanu dan u aragnay haddaan nahay ciidanka xaqdararka SSC caawa waxaan joognaa Jidbaale sababahan ugu kalifay inaanu habeenimo hawlgaladan aanu fulinana waxa weeye dadka qayb kamida shakhsiyaad kamida boqolkiiba la oran karo waa 5 ama 2 baa wali waxay ku dhoomalaysanayaan oo doonayaan inay ka keenaan ganacsi iyo waxyaabo aan loo baahnayn inako og maleeshiyaadka musabbixi inaynu kala xiriir furanay run ahaantina taasuna ay tahay wax inaga dhaxayn karaaba ama dal ha noqoto ama ganacsi ha noqoto inaana jirin waxaanu qabanay qayb kamid ah baabuurtii sirdoonka SSC ay noo soo gudbiyeen waxaana qayb kamid ah waxa gacan kula jira dadka deegaanka waxaan inii sheegayaa gudidii amarkeeda hore u soo fulisay dambigeena inuu gacanta ku jira baa la inoo yimi oo la inoo hayaa sharciga la inoo horgeenayaa haduu ilaahayd ma taas waa taa indhoweyd waxaan maqlayay dadka kulajka ku xareysan musabbixi waxay lahayn ciidanka fasax muuse ciidanka wuu fasaxay caawana wuxuu kaga sugan yahay 3 kiiloomitir dalkayga qayb kamid ah oo aad ogtiin waa Maraaga Nuurdaqaha iyo Goojacade ciidanka wuu fasaxay wuxuuna ka dhaxlay dil xarig iyo naafo cid la dagaalamaysa marar badan waxa tirahdaan waa al-shabaab iyo dad aan la garanayn waxa la dagaalamaya waa annaga waxaad ogtiin anigu inaan ahaa saraakiisha ugu sareysay bangiga Soomaaliland muddo 15 sano ah saxiixiisu waxa la wixii soo galay waxa la wixii ka baxaya isagu gacanta ku hayay waxa isku sheekaysan isaaqow al-shabaab la dagaalami maayo dadkii deegaanka lahaa baa la dagaalamaya waxaad ogtiin inta dalka joogteen inaad waxyaabo badan aad ka fuliseen runta la isku sheegay waxba looma kala wareegayo kii kala dilay ana wuxuu ahaa mid sharka Soomaaliland ku shaqeynaya ka dilay ana wuxuu ahaa mid diliska Soomaaliland sita taamicneedu waxa weeye dulmigii uu iska soo dhamaaday waxaana gacanta ugu weyn kula jiray xisbiga kulmiye markuu dalkan uu la wareegay beehad budulka iyo qaax iyo dhibaatada ku bilowdeen waxaanu inii sheegaynaa xogo badan waa la in ka hayaa maanta maalin ahayna waa la xisaabtamaya muhiimadu waxa weeye marka qof in ka dhinto talaagadaad gashataan waadna baroorataan laakiin waxa la inii sheegaya haduu ilaahay idmo ciidan inii noolna ma jiro inta yar meeshan ku hadhayna wala soo afjaraya si degdeg ah habartii ooyi lahayd iyo aabihii ooyi lahaa chance waxaad haysataa muddooyinkeeda kooban imtixaankii garaadadu sheegeen la diyaarinayo qaabkii loo dhigi lahaa inaad wixinaad kala baxdaan waxaad ogtihiin ciidankan xaqdararka SSC cidda uu la dagaalamaya waa maamulka musabbixi waxaad ogtihiin musabbixi inuu 30 sano ka hor uu riday dawladda Soomaaliya isagoo ku cabanayay xaqdarro caawa isaga xaqdarradii gacanta kula jira annaguna caawa waxaan diyaar u nahay inaanu ridno wixii uu ka dhaxlay dawladda Soomaaliya madaxeedii uu helo waxa jirta qolo aanu darisnahay horena gacmo noo kala gaadheen haddana aanu malaynayo inaanu isku gacmo furnaanayno oo isgaranayaan baan u malaynayaa beesha garxajis kuma jirto waxa weeye beesha habar jeclo waxaan leeyahay dal iyo dad iyo deegaan bayna ku naga dhaxeeya oo isnaqana horena gacmaheenu isku gaadheen markaanu leef wada hadalno anu nin Maxamed Garaada bana
marka dhulbahantinimada ka dego iyadoo aanay sharci ahayn inaan ka dego waxa naga dhaxeeyana wad ogtiin waxaan u maleynayaa dariiqadii hore dhowr iyo 3 sano ka hor ina dhex martay tiibad nagu celinaysaane waxaad ka faa'iidaan waxba naga siinayna wadooyinku dambeynaya kontrabaan aad u fara badan oo sida ganacsi kala duwan ayaa u kala gooshayay deegaanka laakiin si caawa qayb ka mid ah ayaa gacanta lagu dhigay waanigu Maxamed Cawil Kawte Jidbaale degmada Xudun ee gobolka Sool